بسم الله الرحمن الرحيم. aad baan idin salaamaya. shirkeygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay waxa jira war labadii asbuuc ama saddexda asbuuc oo la soo dhaafay la isla dhexmarayay oo xaqiiqatan propaganda badan oo suuqa la galiyay ah ayna dhici karto dad badan oo wanaagsan oo akhyaar ah in ay warkaas ay run u qaataan. waxa warkaas muddo la isla dhexmarayay in dawladda Puntland ay saameyn ku leedahay ama kaalmo ku leedahay dagaalka ka socda meesha la yiraahdo Gurceel oo nimankii odayaasha ahaayo suufiyada ah meesha kula dagaalamayay dawladda Galmudug iyo federaalka ciidamadooda ay kula dirirayeen ay Puntland dacmin dhaqaale iyo mid kaalmo ku samaysay. waxaan cadaynaynaa arintaas inay tahay waxaan waxba ka jirin. Puntland waxay rumaysan tahay in Galmudug ay tahay dawlad dhisan oo daris la ah oo walaal la ah oo ahaal la ah oo dhismaheeda iyo wanaageedu uu Puntland waxtar u yahay burburkeeda iyo hoos u dhaceeduna uu Puntland naafanimo ku yahay. dad Soomaaliya oo daris oo wada degan oo walaalo ah oo isjecel oo la rabo inay sii walaaloobaan isna kaalmaystaan waligoodna walaalo ahaadaan Soomaaliya iyo dawlad iskeedana ay ka qaataan qaybta uga aadan barnaamijka iyo Galmudugna. dadweynaha reer Galmudug iyo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda iyo dadkooda wax garanayaan arintaas inay waxba ka jirin waa og yihiin. waa propaganda il kale oo aan Galmudug ahayn ka soo maaxanaysa dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed la soo dhexmarsiiyay. war hatta reer Galmudug qabaan waxgaradkooda iyo akhyaartoodu ma aha. gaalkacyaan wada joognaa. inta gaalkacay joogto waa hal magaalo, waa magaalo yar. waxa ka jira iyo waxa laga abaabulo iyo waxa jooga waa iskala warqabaan. labada maamul waxa ka dhaxeeya wada shaqayn iyo xiriir wanaagsan. labada oday dhaqameed iyo dadka gudiga nabadda la yiraahdo iyo dhaqanka waxa ka dhaxeeya wada shaqayn wanaagsan. dhalinyaradu way isdhex martaa habeen iyo maalin. shido ka jirta inay anagu wadin waa og yihiin dadka reer Mudug oo halkan aan wada joogno. annagana waxa naga go'an cadawga kaliya Soomaaliyeed leedahay inaanu iska kaalmaysano oo leh argagixisada al-shabaab. cadow kale Soomaaliyeed ma jiro. cadawgaas waxaan rabnaa inaanu si wada jira wixii aan horay iska kaalmaysan jirnay isagoo ah haddana aan iska kaalmaysano. dadweynaha reer Galmudug iyo dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed aan u qeexno arintaasi waa propaganda been ah. arin Galmudug ka timidna ma aha. waa arin ila kala ka timid naloona soo dhexmariyay laga yaabo in dad reer Galmudug la soo dhexmarsiiyay. laakiin annaga waxaan cadaynaynaa marna inaanan Galmudug walaalnimo iyo jacayl maahan aanan colaad u qabin. inaanan marna Galmudug in qof ku dhinto iska daay in qof qodax muddo aanan rabin. dagaalka hadda ka dhacay Gurceelna runtii kuma faraxsanin. wixii ka dhintayna waxaan leenahay ku dhintayna dad Soomaaliyeed baa walaalahaya ah. Allah u naxariisto. wixii dhaawacmana Allah caafiyo. waxaan jecelnahay gudahooda wixii ka jira inay xalistaan oo dawlad baa u dhisan dawladooda iyo shacabkooda iyo odayaashu inta iskaalmaystaan Galmudug wixii gudahooda ay xalistaan. wixii khaariji ah oo sidii argagixisada kalena hadda Soomaaliya dhanbe cadow ku yihiin waa global enemy inaan iska wada kaalmaysano. waxaan iska kaalmeyn karnaa sidii baan walaalo idinku nahay sidaan hore idinku garab taagnay cadow in la diraan idinku garab taaganahay. wax kale inaad naga eegtaana ma rabno. in annaga shaabad sticker khaldana la saarana hadee ma ogolin. waana iska diideynaa sticker khaldan in la propagandeeyo oo waxaan aan ahayn nalaga dhigo oo cadow aanan ciidaanan cadow nalaga dhigana ma rabno. annagu hal cadow baan leenahay. halka cadow aan leenahana waa argagixisada al-shabaab. Galmudugna cadow kala ma leh kaasay leedahay. kaasaa la rabaa inaanu naf iyo maal isugu geyno. walaaltinimadeennii iyo wada shaqaynteennii iyo sidaynu maaragtay amnigeena u sugan jiray iyo khaasatan gobolka Mudug ay labada maamul bedeliska yihiin waxa la rabaa sidii aan wax u wadnay muddadii hadda soo socotay inaynu u wadno oo aan miriftaas khaldan oo meelaha qaldan laga soo tuuray